sidee u ilaawi kartaa qof aad jeclaatay oo kaa tegay ama aad heli weyday runtii way adag tahay in la ilaawo qof aad jacayl dhab u qaaday balse waxa hubaal ah in wax kasta oo la isku dayo laguna dadaalo waqti iyo samir la siiyana in lagu guuleysto qodobadan isku day in aad samayso haddii arrinkan ku haysto waxa hubaal ah inaad guuleysanayso midda koowaad xakameyn naftaada waxa hubaal ah haddii aad isku daydo in aad naftaada wax ay jeceshahay aad ka xakamayso in aad ilaawayso waxaas labo iska ilaaw wixii hore isku day inaad ilowdo wax kasta oo aad qofkaasi ku soo xusuusanaysid waxay kaa saacidaysaa in aad si fudud ku guulaysato la imow samir waa hubaal inay naftaada ku adag tahay in aad ilowdo qof aad jeclayd laakiin wax kasta oo aad u samirto waad awooddaa ogow samraa sadkiisa wuu helaa waqtiyada aad ka hadlayso jacaylka waxa ku saabsan tusaalaha u soo qaadan qofkaas waayo waxaad xusuusanaysaa wax kasta oo aad qofkaasi ku jeclaatay aamin in ay jiraan boqolaal qof oo ka wanaagsan adna aad nasiib u yeelan karto isku day in aad nolol cusub bilowdo sida inaad asxaab badan oo aad farxad ka helayso la saaxiibto sida inaad raadsato dadka ku xiisaynaya adiga waxay kaa saacidaysaa inaad ilaawdo qofka aad jeclayd ugu dambayn naftaada daacad u noqo waxaadna ka soo qaadaa inaad tahay qof faa'iido helay oo aan khasaarin waayo khasaaro mar buu faa'iido yahay aanan dareensanayn inta isjecel waxaan leeyahay quluubtooda malab allaha isu mariyo walaalayaal isku badnaada